بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدح aad u tiro badan baa halkan fadhida waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo kuna salaamo guud ahaantood baan mid u sheego gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mr. Bashir Abshir Bukhari madaxweynaha dadka Puntland Saciid Cabdullaahi madaxweynihii hore dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynihii kala guurka hore ee dowladdii ku-meel gaarkeed ka soo bixiyey أنا قدامي محاكمة إسلامية الله حسين الله وأنا شيخ شريف شيخ أحمد قدامي في برلمانكا شريف حسن شيخ آون وسوى لفت الشقوق بلا سوقت تاريخ بلا مسكلة عبد الله شكور هلي شغل بلا سوقته وأنا عبد الكريم حسين بيرود وهذا اسمه جبلان وزير كهرباء وقدام سوالك وهذا الله نقول شيء وحيني ورا بنتلان عبد الرحمن محمد فاضل وها حلواس سنتر كل حيني بنتلان ها لفدبر أنا أرانك الحصول تجري وما يعاون واحد كسته شرعي يكسر بسبب اسمه إلى جبلان بستة أفضل روحها قدوميها برلمانكا جبلان مراحل كلها فضلة أنا موسى إنت على قريب حرة قفة لذا إنه كقاعدة برطفال كماشي وكلية وحنا الله كل من سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبلها هي كل من يسين حلوانا لغاية أقل سنة كي قراها برلمانكا إدي كي بنتلان لغاية أقل خيارتك أنا لسعوتينا مسؤولين ترى جبلان لمن أحزابته يقف فنانينته عبادة أمنية ورحمة بشيء سلاطين ويوك كل من حولنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وعن سلاح عاوة وحايا هاي سويت سيدر دارا هذا الوضع انت بغير ما انت بيبدأ ليليها سياسيين تيوحي لوها اللي عليها اللي وضعنا لأن الموضوع يرير تابته صوماليا وحاين بغير لوها اللي وعيقرنا dadka Soomaaliya kullaa ee soo joogay ee dibadda inay gudaheeda ka shaqeynayay marxaladii la soo maray say ahaayeen boodaha ku yaala iyo nabarrada dadka Soomaaliyeed ku yaalay waa mid walba si fudud ay xusuustaan oo ay garan karaan waxa Ilaahay mahadii ah inaan ka gudubnay marxaladii qabiilka ومانتا ayna jirin cudur qabiil oo Soomaaliya ka jira maanta ma jiro cid qabiil isu haysa iyo cid qabiil wax ku tirsanaysa iyo qabiil wax ka sheeganaya qofka markaa goobjooga yahay wuxuu dhici jiray wuxuu garanayaa waqtiga maanta uu ku jiro alxamdulillah sida wahayd iyo qaabkii la soo maray wixii gudaha ku jiray baa garanaya haddaba doogta eeli kartaay baahida Soomaalidu waxa maanta ka dhaxeeya waxa isku qaban kartaay xalka ay yeelan kartaay waa maxay waa wax ku saabsan hoggaan horena waan sheegay waxay u baahan tahay qiyaada raashida waxay u baahan tahay hoggaan damaca siyaasaddu iyo kala aragtida siyaasadda iyo hanqalkaaga siyaasaddu ما هو ليجل يصور قبيل أو ليجل يشعر كله وعن سنة تاي ما وجه وهاي كسر سعوتي الله حريص ملك عبد الله يوسف وريتشيني سوى نقرن سوى الكفاح وانت بدو صومري
haddana markii la yidhi cabdulaahi ha dhammaysanna sidaa kaga tag intuu wareejiyadu labadii qolo muqaawamadii iyo dowladdii t f g inta laysku daray yaa baarlamaan 550 uu ka soo baxay oo ahaa midka aniga xabsiga kaga soo baxay sheekh shariif baa loo dhiibay oo qoladii markaa muqaawamadii oo la dagaalamaysa ka horjeeda dowladda ahayd diyashisiintii la qaadada waxay gaadhay markaa inaan indhibaatana lagu qabanin cartana lagu qabanin ee xamar ay ka dhacdo doorasho oo sheekh shariif isagoo lahay rugtiguu yaraa aad sii wadid oo malaha meelbaad sii gaarsiin lahayd intii looga guulaystay xasan sheekh oo markaa dalad waxbarasho iyo jaamacado ku mashquulsanaa aan laga filayn yuu ku soo boodoo sidaas kursigii ku yido sheekh shariifna yidhi xasan waa doonimahasanta uu ku wareeji madaxweyne xasan sheekh wuxuu qayb ka qaatay isagu markaa dhammaystirkii dowlad goboleedyada iyo sistamkii federaalka lagu heshiiyey bal inuu gaadhsiiyo walow markii ugu horreysay la qabsashada ay iska bilowdahay haddana wuxuu gaadhsiiyey inuu intuu dhiso isteydyadii intii markaas muuqatay ay noqoto dowladnimadii dalad in la sameeyey national leaders forumkii marashii aan samaynay madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxweyne xasan sheekh intii la isu yimid ay noqotay wax dhab ah war xaggeen u soconnaa xaggeen joognaa maxaan samaynaa haweenno badan intii lagu dhafro iyadood garanaysaan qofka markaa suldada hayahay fursado badan oo isagu uu samaysan karaa inay jirto haddana madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu bannaanka dhigay ku darsasha inay xaaraan tahay wax gooni u gaara inay xaaraan tahay aanu su nimaadno intaynu meesha joogtay oo intaan tashanno aan isweydiinno xaggeen u soconnaa doorashaan uu soo socota 2016 hal qof iyo hal cod baa dastuurka ku qoran ma gaari karaa ma halkii odaydaanu daynaa doodheer iyo hawdheer waxaan galay in la qaato in isteydyadii mar haddee dhismeen dib loogu celiyo xildhibaanadii la qaybiyo deegaan doorasho ay yeeshaan matalaad ay yeeshaan dad soo xulo ay yeeshaan aqalkiisaba lagu heshiiyo ay sidaa noqoto xilligaa iyadaa baarlamaankii joogay wuxuu diyaar u ahaa awsheekhay weligaan gaarsiin doonaa balaba sano inaan ku dhufanno horena aanu siyaro jiidno waxbaa xildhibdheeraraa ku jiray laakiin ka istaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo intaasoo dhan sameeyey wuxuu ku tala gashanaa kolleyda ninka soo noqonayo inuu yahayo xafladihii way u diyaarsanaayo laakiin qadarta alla madaxweynaha maanta maxaa cabdulaahi farmaajo oo laga yaabo hanka ku jira inuu aad u waxaysnaa yaa wuxuu noqday ninka u soo baxay ee ku guulaystay kursigii yani waxaan fiiri cabdulaahi yuusuf intaa weydeenba soo dagaalay allaha u naxariistee kursigii wuxuu ku wareejiyey walaadkii la dagaalamayo muqaawadaha maxaakiimtaada la warina waddanka meel kale ku socda intuu dhibka ogaamaha cabdulaahi oo ka tag haatan waaridiida ayuu yidhi cabdulaahi meel buu ka fadhiistay xasan sheekh maxamuud isagoo kumeelgaarkii intii laga saaray aad uu waxaysan yahay wax badan laga daba ordayo sheekh shariif oo markaa xilkii hayay oo muddaduna ay ku ay garanaysaa maxaakiimtiina saaxiibadeyda mees joogi iyo hogaamiye kooxeedyadii wuxuu dhib gaaray iyo awooddii lagu lahayo suu ku soo baxay xasan sheekh maxamuud oo dalada waxbarasho iyo waxbarasho ku mashquulsanaa oo shaqadaa ku jira oo walaadka shariifku una iska efinayy yaa meeshii ka soo baxay wuxuu yidhi cabdiweligaas baa yidhi xasan ayuu wuxuu leeyahay inay taageerto warkii suuqa joogay taageeri anaaba waxaas dareysay nidaamada seeni taageeraya waalida ilaahay buu madaxweyne xasan maxamuud markaa isagoo filaynin isla hadda cidinta kuwa tartantay inaad qurbo ka yimid iyo nina waxba kuma yeelayo yaa isagana maxaa cabdulaahi farmaajo oo maanta ilaahay u qoray inuu madaxweyne ka noqdo yaa intuu yimid yaa aayar madaxweyne xasan intuu ka leeray oo weliba labadii madaxweyne oo ka horreysay ay gabdhaha qabteen baa si sharaf leh oo isugu wareejiyey nin weliba kuri aloolaa calafkaaga kuga timid haddaba maanta waxaa aad u yeelaysa guux badan damac badan xaggee loo socdaa 2020 extension masiiraa la yeeli maanta waxaa arkay waxyaalo meelo ku qorqoran
single constituency waxa la yiraahdo hal deegaan doorasho wax badan baa laga hadlayaa waxaas waxay abuurayaan markaa doodo badan iyo nabaro badan iyo fiiq badan bay kicinayaan waayo dadkii shalay ka soo tagay dad wuxuu ku wada jiro ninna ma ogolaanayo wuxuu shalay diiday sheekh shariif 4 sano iyo 5 sano reed xasan sheekh inuu wax ku darsaday la reed hebel waxaasoo dhan wadahay cabdullaahi alaan maxsay wuxuu kaga tagay waxaasoo dhan markay dhacayaan marka qofna wuxuu kaga tagay wuxuu rabaa inuu dariiqii ku helo ama ku yahay waxaa rabaa dowladda maanta jirta saaxiibkeeda maxamed ibraahim farmaajo inuu taariikhda dib u akhriyo isaga iyo dowladdiisa iyo sbiikarkiisa iyo kulliga ay gartaan raggii hore uu soo wareejiyey bahashan qoriishu dhiibka ku soo wareejiyey maynan u suurto waayin inay waxuun dabada meermeeriyaan waxay ku wareejinayaan dariiq saxa inay ku talagalaan oo ay dhammaystiraan sida kuwii ka horeeya ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashada noocay noqonayso iyo waqtiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakerin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabsado iyo in talada la wada leeyahay waddankii waa federaalism buu qaatay isagaasaa wax lagu maamulaa dowlad goboleedyadu xilligii hadda madaxweyne xasan sheekh dowladdii federaalka hadda soo jirtay talada wadaag bay wax laysla saxayo maanta waxaad dareemaysaan dowlad goboleedyadii waxaa hadda laga hadlay axmed adigaa ka soo haray soo saas maa cabdikariim waa fadhiyaa shariif xasan wuu fadhiyaa cabdiweligaas meelahaas wareegaya isla riijinta badan ee hadda dowladda federaalka aad u eedeysa waxay tahay warinkaa fadhiyadii hore ka qayb galay isagana hana dhaafo laakiin anigana waan soo taagnay sababtoo dariiq baan rabaa inaan ku baxo marka waxaan rabnaa saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogolahay waa madaxdeedii gobasha xaflada inay soo qayb galaan aad bay faaday inkastoo abshiri matalay waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukumo iyagaa waaliga iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oo waddankan hayaan baa laga rabaa annaga khilaaf ma wadno xumaatadooda kama shaqaynayno wanaag baan rabnaa hogaamintoodaan rabnaa waktigooda inay dhammaystaan baan rabnaa kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay niwadna ku yimaadaana nahay aan ilaalino oo midaaha ka shaqeeya oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo ciddaa faragelisa iyo wax walba haddii inagu dhexdaan aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegno waxyaalo kale isku tuutuuno dowlada la isku tuuno waxaasoo dhan waa imanaysaa maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iskale mas-uuliyadda madaxda dowladda federaalka soomaaliya sababtoo iyagaa waaliga iyagaa mansilata agtaagan iyagaa laga rabaa wixii khalada inay sixitaankiisa ka shaqeeyaan waayo dariiq saha la isugu yimaado ay keenaan waxaa laga yaabaa waan rabaa inaan meesha ka saarno madax badan baa caawa halka fadhida gobolka banaadir iyo muqdisho iyo wax badan baa laga hadlaya sometimes waa la suura qabiilaynaya dareen kalaa la bixinaya maanta xamar qabiil kama jiro dagaal qabiilo kama jiro waan garanaynaa xamar dhibaataday soo martay 91 afartii bilood ee ka darhaaya caydiid iyo cali mahay aniga mugaanku jaraayo xaggee jirtay wixii iyaga dhexdooda reexamar iyo hayiya ay isku qabsadeen wixii soo dhac kulli haada waa wax taariikhda wada qirayso maanta aniga xamar qofna marti ugaley qofna hama bariyo qofna marti ugaley qof marti ugaley ma jiro siyaasadda la isugu hayaay daarood iyo hawiye iyo raxaween iyo digl iyo manaf iyo bir iyo adaris iyo midna maaha waa siyaasad iyo kuraas yaa suuro qabiilooyin oo qofkii aan la waanatiin bala qabiil qaadanini ha qaato siyaasadda iyo damaca ku jira iyo wuxuu ka hadlayaa midaasta waxaana taataasana inaan uga filan dadkeenu jooga inaan maanta masale qabiil ayna meesha jiro sidaa daraadeed xildhibaanada laga aqal mas-uuliyiinta kale madaxda kale kulligood waxaan leenahay waraan ka wada shaqayno waddankan xal sidaan uga gaari lahay aan ka wada shaqayno inaynan xusuusanin wixii dhibee baraaraha iyo wanaagga inoo muuqda iyo xulumka aan ku riyoonayno aan gaarno aan ka kaaftoonno gacan binahayno maanta waxaa laga hadlayaa 14 Oktoobar oo 600 iyo intaasoo qof ay ku dhimatay ilaahay baan idinku dhaariyey wiilal yaryar baa intaasoo dhibaato ay geystay inaan intaan istaagno maalin walba fooraysanno
وأنا هلود دعي وكان هلا سماي وأنا أحبك قرني وأنا أنا سوين إلى يرديسه وأنا أحبك سرني وإذا مسك علينا ما أنا مع العالم كشرين يا هلا مسوي سوى هلا يوم تبكى يوسف يا مسؤولك أنت أنا قرارنا إن حوالي رفعتنا إن سكر الله يريده وحيرتها إن كشق إن الضل كان والضب كان إن علينا كهرنا شرفتي عن شرها إن سوءنا هديك إن نستوينا إن المرأة كل أنا أنت ما شاينا نساء وصحنا من قريش دستور كلام وشيء واجب وحن وواحد بيسوي كل شيء حضان يسوي من ويسوي إنه كره جانين ويسوي إنه كل رقم ويسوي هو كلام كانن من كلام كانن كاسان كلامنا سوى كل دبنا سوى نسكب قلب وهديارنا حق أنا ويسيرنا دستوركم إلى قاطع حق الدولة فضلات علانا هالناسي دولة نوح شاغنا ولما أنت جاية كل كلام جاية من ولده ما أنت على عن كيس وقوة حبيبي لهانا مهلا ما أنت غالبا ما ودك سوقنا ده غالب بحياة وسود ما دين العفو حدا الله سمعين لكن ده حديد قاله ما هو ما سيدنا مالك علي ولا حكى بحاطورنا ولا يعطي وعن روا قف كست وحل صوماليات هي كيني وكشقين يديها بنا قلب استعيد غير ذا قلب بكان ليسي هي قلب الياس سيحة كرا خلط كقلب بكتشرة أنا ومتى عدك الأواتيرين هي قلب بهاس السحانيات حق الدستور كوسينا ولا حقاتين ورد محيحة لنا هيدا إذا نتوالها كشقين لكن إذا أنت إسقسقسان أحيانا ردفك كلها حل هاي سيحان اليوم وواحد هو كجرها حليا ويناك كلها شقية وحيرتها عن مدعس كشقين هدان جب الله معي سيدي فرتان كان ميت شرع بيوسين بارك وحان ديارنا يتبدها هي يتبدها هي مدى دولة فضلانكا هي قف كستور حنوية شوالية سي كستور يقدر بيحي كريان ديار بانيان قبصون سيد دونتها وحدكاتو وحان ديارنا هنا نواد كشقين وقبصون لكن وحان كوكا بيحي كريان نقطة شرعين محقابي وحان روا مرة هذه نفس الضحان إذن آلي يكون هالعليو وآلي يكون هالعليو كلا سوقين ذلك أنا ولا سوقين نشان صاحبي أنا قواتينك ديارة يهوي عرو دول حرة ولي اسكتها كتاينتها سعيد يعني مهد علينا سفر كان سوق لي ماشي دار شيخ شريف صاحب كان ورمسي مهد علينا دراري قبلين ساعة كانوا سوى استنبوه كسوى دولي ترانسي بيان كسوى قدية أنتي العليا وحي كانتي سوى لبسة درانا وكتيري معك والمحال يقول علينا هني في شارع دران كفرين على هين وأنا ما أدرينا كل يوم أنت تنبع بنا مين اللي مهدس الموشة كقاطع أبدا ما تنتي ما يجي مية شوتان كافية شوتان نرسي شوية أنا شوية أنا علاش إذا كوا قبله هدي لتي رسلنا ولا كتير هدي شو بلان أنت ناس المسؤولية ده بسارة لهون سعيد ده شوية هذا سيستم ككتير سنة تركات شوية أرشد دولة فضلانك يعدوا حماية ونساء ويكون أنه البياع كتجر انت وحان بياع روح إنه وح كستا أو قربحة أو ضوبحة أو شبع كمقنا أو هبلة أو ببادة أو حلقة إنه قامين بيارها ويجب تلكنا قفل ويجب تلكنا روحا اسكدا كو إلى جوة هذا مواليه جوة أو احتوانا قف كستو انتي ما كان المسؤول بيديه وكيل بيه لغنين محاكك ورحت سوماه والله اسحمان مسبق غنينين يهد الله غنينين معه هذا وإنها غنينة رجب الله سبحانك وركا أخبار كله لكن سوء عينه فكتر عينه فكتر أبدا ما تنتسى الله ورحمة الله